لكن ما أنت سكيدة ما أنت كوهايا أكيد رايح أي سكيدة والله باك أنا بعاد ما باك هرت باك أنا سائل مدي الله مركز ديليو حارت صار بلايم بقبا ما إيوه بحذاي والله ده والله لكن إن روضي waxaan ku weydiiyay ma taqaanay wiilkii maalinkii aan ka soo gadanaynay alaabta oo isbaranaynay oo kadib adi ku caawinay ma xasuustaa sharmaake gabadhii uu qabay maartay oo firdowsayd uurka lahayd miskiinta ahayd gabadhii waxa ku dhacay taqaanaa oo ku lix waay saaro gabadhii waxa ku dhacay taqaanaa Allah baa gabadha maama dhib badan wiilka sodoho ah kowde gabadhii wiilku way kala furtay والله reerka miskiinka hadana oo baariga reerkaas wallahi reerkaas reer ma sha Allah markaad maxaad toole soo salaamaysid si wanaagsan oo sharaf leh ku soo dhaweynaya reerkaas horta ma tagi jirta reerkaas هذا قاعد صدهلانا دانته صدهم محل horta صدهم waxa dhahay reerkada ayada dumis ayada dhista ayadana dumiso laakiin mida ku weydiina maxay ka helay oo ku saar waa keenta already wallahi maamadaas waa ka yaaba maamadaas laakiin wiilka sida u jeceshahay iyo sida hadana ilmaha uga furtay baa gabadha uga furtay صدها معجزة قال يقانا بسم الله الرحمن الرحيم ويلك دنا way jeceshahay markii wiilka arto waxay leeyahay hooyo curadkay baalkii yaraankayga leeyma taaban kara asaga ugu yar moogta carruurteeda maxay ugu furtay hada jecesha ma waxay ugu furtaa taqaana ma waa dib badantii inka saas meel walba ku dib badantiin yaa dib badan dumar oo dhan baa dib badan adi hataa sadoo hadaan noqdo xasabeyn ani wiilkay waan dhoolina naagtiisa oo fiiri lahaa isoo u fiirina oo burin leeyahay wallahi ma buriyeen dadka soo isku mid ma aan soo maha صح أول مسيبة نادي مسعود صح dadka isku mid ma صح صدق معانا أركي صدق هنا أركي صح هذا عنقاق سيء لهاد عنقاق قبل هدو قبو محاسب من لهاد مبورن لهاد ما بورن لهاد قبل إذا قلك السوق هذا لها وكل كل لها واسحة إذا قال إسكار حتى وتدود بري أجورس أجو بالكذب وحلا يقبح لو سيق هذه حنتي ذا ويل كيجا إسكاله ما بدو هذا نوح حكو أنت قبل مرة ما أنا أقول له قلت المكتة صح واحد هذا أوري لا ذا مكتة قبل markaas waxa dhaxday uurkayga xataa way in kartay kulaha waxaan xulus waay ilmo maahan wallahi maamadaas oo igu maamadaas oo igu badisay xulus waay isa bar ma dhahdo ana wiilkayga gabadh uu xulusta ya hada xulusta isa bar ma dhahdo soo bara see cadayn baa loo raadinaa ilmaha wiilkeeda u dhalay ma cadayn waa inkiraysaa Soomaa sax ayadoo inkiraysa la ilaaha illa laakiin ana waxaan ka yaabay qof ilmihiisa saas u jecel oo saa u kolka haddana laakiin mid kala jirto soo tii la dhihi jiray yacni maamadu yaraankeeda iyo curadkeeda midna lama taabto been ma aha laakiin maxaa ka qaldanaya intaas waa la sheegay wax ka qaldana ilmihii haddana ay ka dishay intay reerka habaar kala daba dhacday habar mucjisa ahayd wallahi habartaas habar mucjisa ayada ma dhashay bal ayada ma dhashay oo laba jeer ay dishay mar waxay u qanacday isko baalka ugaali lagu kariyay igu qaraacday miikooda ku gara aniga qabri kuma jiro mid kalena maxaan ku raday wiilkaas waa wiil wanaagsan waa wiil fiican waa wiil maxaan ku raday aniga saan arkay waa wiil ma taqaantaa inuu loo noolaan kara wiilkaas waa wiil wanaagsan wanaagan ku ogaayay wiil soo jira bisoo ayada kaliya dhibaatada هاي wanaag wuu wada asaga hataa xaafad wuu iga raray xaafad kale uu idajiyay xaafadii kale ana waa iska nasanay oo ka reestay inay noo imaad albaabka noo soo qaracday ani asoo ku jirno xitaa meedin gurigan dada ku jiro iga soo bixiyay dhahday naagtan dhulka isku qaracday bo indhaha dhanayga arki laado hooy waxaan ku sameeyna malahan aniga qabri kuma tan ogaana ana ifku waan taaganahay inaad kuma qaraaci karta aniga ifkan intaan taagan laakiin hooy wiilka sina ma taqaantay kala fadhiin aadi aad baan ugu samay mid kale ifka ma taqaanta shirika ma jir baatay shirka kooda kamid ah doo ku furo nin uma jabaysid kuma ogtahay eedo xaamilan daawrta soo dishay anaga kuma jirno Soomaaliga cunug hataa way inkirta kulaha cunugayga wiilkayga lacagtiisa xulusa ka imaad kulaas oo cunaysa maya midaas ma dhici karta ma jirto cunugaaga horta cunug waxa ay aamu maxaan ku inkiri karaa ma jirta mid labaad saddex sideeda way badan
maya ani si marna u tagay ma fahantaada meel habarta la soo maamas saaraa maamo weyn waaye habartaas wadada markaan ku meesha ku aragnaa kabaa kaga siinayna ebala habarta wajigeeda necbaay hooyo gabdhahan waa kiri la-ayhe waxay leeyihin maamadan dilaynaa u tagayna ay leeyihin hooyo macana saas ma ahan maamo weyn ciidaba oo gariireyso maxaa laga dilaa hooyo hadda waa nin kaareyso maahan abaa ma ogtahay gabadha masaakiinta in la furo hawa oga abaa habartaas qumeyda masiibada yaa la joogi karane war aan hal bilo u shaqeynaya halkii bilo u shaqeynaya weeba isoo burisaba iga bax gurigeyga kuma aqaane wax balaaya dildilaysa fiican abuuseete aada u ladanahay hay muddo maan kusoo booqan sorry dhigaraa lahaa dhib ma lahan abuuseete hooyo ka waran aada bay u fiican yihiin qofka keliya laga fikiraya adiguu noqday waana ogtahay qadar inaynu ugu dhacday oo nuunaheena dunidan inuu ku noolaadaan filaynay in qadar rabbi uu naga noqday inuuna naga saqiira naceebaan kuu qabo maanta gurigeena maugu soo tegin jaceylkeenana ma dhammaanin ma fahantee problem fahmilka le waaye walaahi sidii hooye iyo walaalahay kugu kalsoon yihiin zaa-id ay kugu kalsoon yihiin ma fahantee mar walba waxay dhahaan hooyo iska dulqaado calafkaa dhammaaday maamadaas le dhibka wadatay marka waalid waayo laakiin dhib ma lahan waana jeclaa inaan dad hal meel mar walba kasoo wada kaco aan noqono laakiinse waa iska ogtahay wixii dhacay si wanaagsan marka waxaa hadda keliyaan kuugu imaadana waxay ahayd inaan adig kusoo arko kusoo booqdo lacagtan 10,000 iga qabo 5,000 waa lacagtii meherkeena 5,000 ee kalena waa lacaga ugu talagalay in adiga xaaladahaaga caafimaadka iyo jawigaaga iyo isbedel iyo booqtir wax la yiraahdo iska noqdaan marka maya wax dhib ma lahan waxaa laga yaabaa in rajadeena dib ay usoo laabanayso ama ay usoo laaban karto maxaa yeelay caqabadihii badnaa in hor yaalay qeybo kamid a waxaad moodaa hadda inay sii yaraanayaan sababtoo ah wax badan hooyo maalmahan sheekooyin badan oo aan wadaagnay waxaan ka dareemayay inay u xiiseyso oo ay doonayso inuu u laabato Soomaaliya halkaas familka qeyb kamid ah degan gabdho badan oo ila dhashaa si wanaagsan marka xagga hadii aadana waxaa suuragal inay xagga isaga nagaato oo aysan dib ugu soo laaban halkan markaasna ay noo furmaan albaabo kale oo qeyr wata oo la xiriira aniga adiga inaan dib mar kale si fiican marka inaan mar kale dib u mudownana rajadaas aad ay u wanaagsantaa waa waxa kaliya haddana aan naawilayo waan aad ugu fikiraayo adigana waan rajeynaa in culays badan familkaaga uusan iga imaadoonin aniga dhankayga wax kasta haddaan kasoo dhameeyo may caadi waaye laakiin dhan ma iga dhaaftid hooyo maama kulul waaye abuu